السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتين دمان مقعيق ومحمد جمال بشير وحانا هاي سينيور اوتريتش كا او افردية مقالة كولومبوس ururka la yiraahdo Somali Unified Youth anigoo ku hadlaya ururka magaciisa waxaan idin leeyahay soo dhawaada ururka sababta aan u aasaasnay ayaa waxa kamid ah sida aan uga hortagi lahayn dhibaatooyinka Soomaalida ku haysta qurbaha sababta ururkan loo aasaasay oo specialty oo ah in mataqaana caruurta hadda Soomaalida soo koraysa sida loogu mentor gareyn lahaa ama loo bari lahaa meesha ka yimaadeen taariikhda leeyihiin iyo identity-ga oo mataqaana nafsad ahaantooda ay waxay yihiin caruur badan baa waxa arkaysaa maanta hadaad wareysato war maxaa tahay adiga wuxuu ku leeyahay aniga maxamed baa la yiraahdaa macali aabihiis magaciisu ku sheegaya laakiin marka si raacday waxa laga yaabaa identity ahaan uusan waxba ka aqoon taariikhda Soomaaliya meesha ka yimaad marka ururka sababta loo aasaasay ayaa waxa asal raaciisa ah in la helo ways ama hab caruurta Soomaaliyeed loo xasuusin lahaa taariikhdooda marka ururka sidiisaba marka aasaasnay waxaan u aasaasnay in caruurtaaneeto mataqaana in ay u baahan yihiin mentorship number 2 mataqaana la helo dhibaatooyinka kale hadda Soomaalida caruurta Soomaalida ka haysata iskuulada kale sida mataqaana gang violence oo kale iyo drug usage sida looga hortagi lahaa marka waxaan sameynaa in aan baxno oo caruurtaan iskuuladooda inta ugu tagno ayaan waxyaabo u baahan yihiin awareness ahaan oo aan ka siino marka mideeda kale oo reason kan ugu qasbay inaan video-gan sameeyno ayaa waxa ah maanta oo mataqaana oo taagan sanad guuriyadii SYL saan ognahay waa dhalinyaro oo arday isku imaatay oo mataqaana fikrad isku keentay sida wax ugu qaban lahaayeen wadankooda dhibaatada markaas haystay 1943 u haystay colonialism marka ujeedada ayaa waxay tahay haddii la helo dhalinyaro Soomaali ah oo isku xiran oo mataqaana fikradooda isku kaasata oo og meesha ka yimaadeen iyo meesha hadda joogaan iyo meesha u socdaan markaas waa la heli doonaa ama waa laga yaabaa in la helo xal looga baxo dhibaatada hadda Soomaaliya haysta marka insha Allah SYL saan ognahay kuwii horta ayaga oo kale ku dayda Ilaahay hanaga dhiga aamin mideeda kale SYL waxa laga yaabaa marka isweydiiso waxyaalo badan oo mataqaana maanta dhalinyarada hadda ay haysato aysan haysanaa jirto laakiin hal wax ay haysteen determination go'aan ay lahaayeen go'aankaas oo ah sidii cadawgooda uga saaraan wadankooda annagana go'aankan leenahay ayaa waxa ah sidaan mataqaana community-ga aan deganahay ama aan ku dhex jirno saan mataqaana community wanaagsan aan uga dhigi lahayn ama wadankeena markaan tomorrow aan ku laabano sidaan wax u tari lahayn ujeedadana taas way marka insha Allah marka dhalinyarada hadda mataqaana soo koraysa siiba hadda kuwa yar oo mataqaana elementary iyo middle school ka dhigto waxa looga baqayaa inay milmaan ama ay Soomaalinimadooda dhinto taasna waa marka mataqaana arrin weyn waaye oo u baahan waalidiinta iyo dadka waxgaradka ah inay ka fikiraan oo mataqaana oo ay uga fikiraan sida mataqaana caruurtan ay mataqaana u dhaqan celin lahaayeen marka anaga go'aankeena waxa waaye saan u helno dhalinyaro mataqaana oo intay wax kala gali lahaayeen sida gang violence iyo groups oo mataqaana aan faa'iido u keenin in mataqaana organization aan u sameeyno organization kaas oo mataqaana caruurtan ku tababarayo self identity waxa ay yihiin inuu qof Soomaali yahay oo taariikh uu leeyahay oo diin leeyahay iyo dhaqan inuu leeyahay wiil iyo gabar marka insha Allah midaasna waa mid hadda mataqaana insha Allah oo Ilaahay ka baryayno inay noo suurto gasho mataqaana SUY waa group mataqaana waa arday oo mataqaana middle school ilaa high school ilaa college dhigata oo mataqaana isku imaaday community-gooda wax uga qaban lahaayeen insha Allah kuwaas oo ayagana si mataqaana raad raacaya SYL oo ku taariikh lahaa taariikhdii Soomaaliya iyo xornimadii Soomaaliya soo martay insha Allah kuwii ku dayda Ilaahay hanaga dhigo wassalaamu calaykum waraxmatullaah waa ku salaamantihiin waana ku mahadsantihiin halaha video-ga aad dhageysateen sidoo kale dadka taqaaniin saaxiibadiinana u sheega inay mataqaana ka qayb galaan ama ay ka arrin qaataan organization-da Soomaaliya mataqaana hadda wax loogu taraya ama organization-da community-gooda wax taraya maanta assalamu calaykum waraxmatullaahi